waxaan rabaa inaan baaq aan u diro cafis ah dhalinyarada runtii la waalay oo shabaabka ay maxaan ku raadahaa ay waaleen oo ay khaladka uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinteenna maxaan ku raahdaa muqaddaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan dhalinyarada cafiska loo fidinayo waa arinta aad iyo aad noo soo qeyligelisay maadaama qof dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo haddana dambi galay haddana la cafinayo horta wadan duu dhismaa horta marka uu horeeto waxa waaye inuu cafis horta la isku sameeyo sida documentary fara badan aan ku aragnay wadanka Rwanda waan sida anaga isku dhibaatada isku geysan oo kale iyaga isku geysteen laakiin waxa kaliya wadankooda ku dhistaan waxa waaye cafis waxa way qof walba qaladka uu galay waxba ka hoosgareeyay dadkaas maadaama ay soo laabteen waxay ka dhigantaa inaysan wax dambi lahayn dawladdan cafiska u fidisay boqolkiiba boqol aad ay ugu mahadsan yihiin dhalinyarada shabaabka oo dawladda cafiska u fidisay horta run ahaantii qof walba bini'aadan uu qaldami karaa waxaan aaminsanahay raggaas dhalinyarada inay wax walba qalad u ka dhacay ay yihiin dawladda federaalka Soomaaliya hadday go'aan ku gaartay inay cafis u fidiso waan ku faraxsanahay waan ku soo dhaweynaynaa dhammaan dhalinyarada shabaabka oo walaaliheen inay isbedel weyn ka sameeyaan wadanka waxa macquul ah xataa rag bari wadanka wax u qaban lahaa inay yihiin waxa macquul fikrad qaldan in laga dhaadhacsiyo marka waan soo dhaweynaynaa fikradaasi dhalinyarada shabaabka ah arinta loo fidisay runtii arin wanaagsan weeye waxay muujinaysaa in madaxweynuhu diyaar u yahay arin nabadeyn dhab ah inuu soo bandhigay bay muujinaysaa wax loo baahan yahay weeye waa soo dhaweynaynaa dhalinyaro ahaan intii dagaal iyo qarshac wixii dhalinyaradan maskaxda laga bedelay maanka laga bedelay in si wanaagsan wax lagu sheego ay wax bartaan ay noo yimaadaan nabadda aan ka wada shaqeyno aad baan u soo dhaweynaynaa u soo jeedinaa cafis haddii loo fidiyo horta wax matalaysa cafis keliya ninka hadduu shaquu rabaa inuu horumar gaaro rabaa muxuu ku gaari karaa inuu shaqaysto shaqo abuur in loo sameeyo haddii shaqo abuurkaas loo sameeyo oo cafiskeena loo fidiyo wadanka waxbuu u tarayaa qofkaas waxay u baahan yihiin dib in loo sameeyo dhaqan celin in loo sameeyo waxay u baahan yihiin wax la baro waxay u baahan yihiin in maskaxdooda psychology ahaan dhaqaatiir loo qabto oo si fiican wax looga baro in diinta si fiican loo fahansiiyo waxyaalaha qaab mataqaanaa khaldan oo laga dhaadhaciyay ay dib u aaminaan inay dalkooda ku kalsoonaadaan in aqoon badan dalkooda ay helaan bay u baahan yihiin dawladdu waxaan kula talin lahaa inay garab ku siiso dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inay dhiirigelin ay siiso dhalinyarada maadaama ayada ay tahay hadda hormuudkeena maadaama dhalinyaradan ay yihiin udub dhaxaadka wadanka laf dhabarta wadanka maadaama ay yihiin dhalinyarada waa inay dawladda dhalinyarada ay dhiirigelisaa